dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aad uga cadhaysan booqasho aan lagu wargelinin oo madaxweynaha Kenya uu shalay ku tagay degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose sida ilo diblomaasiyadeed u xaqiijiyeen warbaahinta Wardheer Media. socdaalkii shalay uu ku tagay Kenyatta degmada Dobley ayuu ku booqday ciidamo Kenyan ah oo halkaasi ku sugan hase yeeshee kuma uusan soo wargelinin laamaha socdaalka ee dowladda federaalka Soomaaliya taasoo cadho xoogan ka abuurtay villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo oo si cadho leh uga jawaabay. Ilawareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa noo xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay tallaabadan Kenyatta qaaday u aragto xadgudubka dhan ah madaxbannaanida Soomaaliya. diblomaasiyiin codsaday inaan la magacaabin ayaa Wardheer Media u sheegay in villa Soomaaliya ay ka fakarayso tallaabada ay qaadi lahayd si ay uga jawaabto xadgudubka uu ku kacay Uhuru Kenyatta. ayagoo noo sheegay in gafka diblomaasiyadeed ee Kenyatta uu halis geliyay socdaal la qorsheynayay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu toddobaadka soo socda ku tago dalka Kenya kaasoo iminka ay macquul tahay in laga baaqdo. tallaabada Kenyatta ayaa sii xumayn doonta xiriirka markii horeba aan cagaha adag ku taagnayn ee dowladda cusub ee Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah Soomaaliya ka dhexeeyay kuwaasoo caado ka dhigtay faragelin qaawan oo ay ku sameynayaan arrimaha Soomaaliya. dhanka kalena maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay warar ka soo baxay madaxtooyada Kenya oo ahaa in shalay magaalada Dobley uu tagay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo la hadlay idaacadda Risaala oo ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa beeniyay wararka sheegaya in Master Kenyatta uu yimid degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay in madaxweynaha Kenya xataa uusan imanin gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayna been abuur tahay inuu yimid degmada Dobley. isagoo sheegay in warbaahinta Soomaaliyeed iyo ta Kenyaba ay warar been abuura ka tabiyaan deegaanada maamulkoodu uu ka taliya ee Jubbaland waa sida uu hadalka u dhigay. si kastaba ha ahaatee madaxtooyada Kenya ayaa shalay galinkii dambe si rasmi ah u shaacisay booqashada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku tagay degmada Dobley ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxaana guux ballaadhani uu ka taagan yahay villa Soomaaliya oo aan lagu soo wargelinin booqashadaasi kooban. sawirro la soo qaaday ayaa muujinaya madaxweynaha oo tagay xero ciidan iyo teendhooyin ay ku jiraan ciidamo dhaawaca oo u dhashay dalka Kenya. sidoo kale marka laga yimaado guuxa villa Soomaaliya ma jirto dowladda federaalka ee Soomaaliya xog rasmi ah oo ay ka soo saartay ama weli si cad ugama aysan jawaabin amuurahani walow maamulka Jubbaland uu muujinayo dabacsanaan dhanka Kenya. subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada